warqadan qaad ciidankaana wado 2 maalin soco oo jihada ayada u soco markaad 2 maalin socoto aad 2 maalin iga sii maqan tahay 2 maalin aad socoto aadan istaagin warqadaas fur dabeedna waxa warqada ku yaala akhri kadibna فلي أو صوص ما يوحى ورقدها سكويال. السلام عليكم صاحب بيال سود وهذا ميل والبدونيد عليه كجوكتان الكني وتاريخ الشو وشانل كي تاريخ ذا يو حقها قصة سن تاريخ ذا كيري جرتين صاحب بيال ما أنتوا حان إذا لو ذا جيامد كم إذا قسوين كعجيبك إلا ذا هي دولة النبي صلى الله عليه وسلم يسراياتك بعد كور قبطان صاحب بيال إن سريوين آت أفر بدن والنبي صلى الله عليه وسلم ودري تريدوا ذا ولا سكو خلافه لكن سيد الله بدن هي سدح يتضبات سريو أي رسول قدري صلى الله عليه وسلم صاحب يونكاس waxa ugu horeeyay sariyada loo yaqaan sariyatu nakhla sariyadii uu hogaaminayay ninkii la oranayay Abdullah ibn Jahsh taasi ayaa rabaa in maanta aynu ka sheekeysano aan kula wadaago waa sariyadii ugu horeysay oo ay muslimiintu ay sameeyeen kadib markii ay soo hijroodeen oo magaalada Madiina ay yimaadeen dhaqdhaqaaqii ciidan ee ugu horeeyay ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay oo saxaabadiisa uu diray ayay ahayd sariyadaasi ayada saaxiibada nagu cusub tahay waxaanu ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto waxaan haynaa wadadii aynu ku gaari lahaynay kunkii qof ee ugu horeeyay ee channelkeen sharaf bay noo tahay inaad ka mid noqoto oo aad subscribe noo saarto saaxiibadana aad la wadaagto si channelku meel dheer uu gaaro soo dhaw saaxiib sharaf ayaa anagana noo tahay inaanu ka hadalno duulaanadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo sariyooyinkii uu diray dadkaasi aad bay ugu dadaaleen sidii diinta ay noo soo gaarsiin lahaayeen annaguna waxaanu haynaa wadadii aanu idinku bari lahaynay duulaanadii iyo sariyooyinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay haddaba saaxiib maalin maalmaha ka mid ah sanadii labaad ee hijrida gaar ahaan bishii Rajab ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yeeray saxaabigii la oranayay Abdullah ibn Jahsh saxaabiga Abdullah ibn Jahsh markuu nabigu u yeeray waxa uu dhibay warqad waxaana uu ku yiri warqadan qaado jihadan ayadana u soco nabigu waxa uu tilmaamay jihada Makka iyo Taif inta u dhaxayso ayaa nabigu saxaabigu u jihiyay kadib waxa uu ku yiri waxaad soconaysaa 2 maalmood labadaasi maalmood markii aad socoto oo ay ku dhamaato warqada ayaad kala furaysaa ka hor warqadan ma fiirin kartid waxa ku qoranna ma akhrin kartid dabadeedna markaad meeshaas gaarto 2 maalin ay ku dhamaato warqada waad furaysaa waad akhrinaysaa waxa warqadaasi ku qoranna waad fulinaysaa saaxiibayaal ninkii la oranayay Abdullah ibn Jahsh waxa uu ka haystay ciidan aan sida u badnayn laakiin xul ah oo loo xulay ciidankani dhammaantood waxay ka koobnaayeen muhaajiriin oo hal ansaarihi kuma jirin waxaana ka mid ahaa rag magacyadooda la sheego Sa'd ibn Abi Waqqas iyo Utba ibn Ghazwan iyo Waqid ibn Abdullah haddaba saaxiib Abdullah ibn Jahsh waa u dhaqaaq Abdullah sidoo kale warqabtaan ba waxa dhashay nabiga eedadii ayaa dhashay oo gabar Abdul Muttalib u dhalay ayaa dhashay oo nabiga aabihi la dhalatay sida daraadeed nabiga eedadii ayaa dhashay waa mar kale Abdullah waxa la dhalatay Zaynab bint Jahsh oo ummul muuminiinka kamid ahna xaaskii nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam haddaba ninkani sharaf badan ayaa u kulansaday ninkani wuxuu noqonayaa ninka ugu horeeyay ee loogu yeero amiirul muuminiin maadaama ciidanka asaga ay baxayay muhiimadda nabigu u diray looga dhigay amiir ciidankan uu watay Abdullah tiradooda mu'arriqiintu ama taariikhahanadu waa isku mandhaafaan 12 baa la sheegaa 8 baa la sheegaa 9 waa la sheegaa adigu 12 iyo 8 inta u dhaxayso ayaa uu ahaa ciidankan uu ninkani watay saaxiibayaal Abdullah ciidankii ayaa watay waxaan uu kala dhaqaaqay magaalada Madiino labadii ninba waxa ka dhaxeeya hal awra oo ay gaadiid ka dhiganayaan nina uu markolayo kan kalena uu lugaynayo kaas markii uu abaar saaraadana kan kale uu bedelayo haddaba saaxiib waa u dhaqaaqay saxaabigii Abdullah ibn Jahsh waxaan u dhaqaaqay jihadii uu nabigu u diray dhinaca iyo Makka iyo Taif inta u dhaxaysa waa uu socday waxa uu socdaba labadii maalin ayaa u dhamaatay labadii maalin markii u dhamaatay warqadii ayaa kala furay waxaana ku qoran haddii aad akhriso warqadayda waxaad aadaa meesha loo yaqaano Nakhla oo ah meel u dhaxaysa Taif iyo Makka halkaasi ayaa tagaysaa waxaadna ii soo ogaanaysaa Quraysh xogteeda dhaqdhaqaaqeeda iyo waxyaabaha ay sameynayaan dhaqdhaqaaqa halkaas ay ka wadaan Quraysh iso ogow ragga kula socdo saxaabadana qof kamid ah ha qasbin oo arintan ayada ah ku qasbin hadii uu aqbalo ku raaco hadii ay ku adkaatana waxa weeye ha qasbin oo ha barta ayada ha ka soo laabto dabeedna Abdullah markii uu warqadii akhriyay waxa ku yaalana ay ogaadeen saxaabadii waxa uu yiri daba nimayahow fariinta nabiga waad maqlaysaan ninkii idin kamida ee doonaya hadda inuu laabto Madiina uu laabto fasax ayaa uu yahay sababtoo shaqadan aadayna waa shaqo adag waa shaqo naftii hurnimo ah oo nafteena ayaan huraynaa sababtoo meeshan la aadayay Makka iyo Taif ayaa u dhaxaysa labadana mushkiin baa haysto labadana nimanka Quraysh iyo nimanka reer Taif ee reer Thaqif oo inkaarta qabay ayaa u dhaxaysa waxaana suurtagal xilli walba inaanu isku dhacno oo aynu is aragno haddaba saaxiibayaal ninkii aan diyaar ahayn bartan ayuu ka laaban karaa Madiina ayaanu aadi karaa laakiin raggani saaxiibayaal ma ahan rag aad moodo oo waa rag naftooda waa hore alla ka iibsaday hawshii nabigu u idmadana inay yeeli waayaan rag laga filayay ma haddaba dhammaantood raggii waxay isku raaceen in fariinta nabiga la fuliyo saaxiibayaal waa ay dhaqaaqeen saxaabadii meel dhaxda markii la marayo ayaa ninkii Sa'd ibn Abi Waqqas ahaa iyo Utba ibn Ghazwan oo labadooda ka dhaxeeyay
ayaa fakaday dabeedna labadoodiba awrkii ayay ceyrsadeen awrkii way qaba waayeen waana ka fogaaday ayana kamay hareen way raadiyeen oo ay daba kaceen saxaabadii kale waxay yiraahdeen war hawsheena yaana kaga mashquulin labada nin aynu soconno haday ratiga soo helaan kolba way naga daba iman doonaan sidii ay saxaabadii kale oo Cabdullaahi hogaaminayay ay ku socdeen meeshii naqal la oranay markii ay tageen ayaa waxa ay arkeen kolonyo gaadiida oo awra oo ganacsiya oo Quraysh ay leedahay oo socota ay la kulmeen kolonyada waxa hogaaminayay nin yiraahdo عمرو بن الحضرمي waxa la socdo Nawfal ibn Abdullah ibn Muqayra oo reer Bani Makhzumaha iyo nin kale oo asna reer Bani Makhzumaha iyo nin la yiraahdo Abdullah ibn Kaysa oo muulo u ahaa reer Bani Makhzum kolonyo gaadiid oo afran ay hogaaminayaan ayaa meeshaasi kula kulmeen dabadeedna markay isha saareen ayaa seefaha la boob hadana waxa la xusistay fariintii nabiga ragii waxay yiraahdeen warnamayo tani waa kolonyo ay leedahay Quraysh oo hantidoodii ay saaran tahay warnimankii xoolaheeni boobay Abdullah ibn Jahshigan hogaaminaya sariyada gurigiisii hantidiisii oo dhanba ninkii Abu Jahl ayaa xaraashtay oo qaatay oo la wareegay marka waxay yiraahdeen war xoolahan ay leeyihiin Qurayshi maynu qaadano hadana waxa is weydiiyeen warnamayo bishan ku jirnaay waa Rajab wana bil kamida bilihii xurmada lahaa ee aan Carabi aan waxba sameey jirin oo hatta ninka Carabeed hadii uu la kulmo ninka aabihii dilay ama walaalkii dilay aanu gacan u qaadi jirin bishan Rajab waxay ku jirtaa bilaha xurmada leh sida Quraanka aad ku aragteen Ilaahay waa kan oranayo inna ciddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum afar xurmada afar bilood oo xurmo leh ayaa ku jirta afartaasi waa saddex waa isku xigtaa waa Dhulqa'ad iyo Dhulhijj iyo Muharram Madiina waa Rajab waana bishan ay saxaabadu ay muhiimadan ayada u bixeen hadaba saaxiibayaal saxaabadii waxay yiraahdeen maanta waa maanta waxay yiraahdeen waa maalinkii ugu dambeysay Rajab oo waa 29 buu ku dhamaanaya ama 30 buu ku dhamaanaya nimayo gaadiidkan hadaynu fasaxno oo aan dhahna maanta waa bil xurmo leh yeynaan taabanin xaramkii bay galayaan hadii aan la dagaalanana waa maalin xurmo leh oo waa dhibaato weyn intii ay saxaabadu ay murmayeen oo ay lahaayeen war maanta waa maalin xurmo leh nimanka aynu qabanno iyo aynu deyno ayaa ninkii la oranayay Waaqid ibn Abdullah Tamimi ayaa fallaar dhabku yiri ninkii hogaaminayay qaafilada mushrikiinta ee la oranayay Amr ibn al-Hadrami dabeedna dhigta ayuu dhiig u diray bartaasi ayaa ku dhintay ibn al-Hadrami waana ninkii u horeeyay maalintii Nabi Muhammad la soo diray ilaa maalintaas ayada ah u horeeyay muslimiintu ay dilaan dhiigiisi dhulka ku daad dabeedna labana waa ay qabteen ninkii la oranayay Nawfal ibn Abdullah al-Makhzumina waa cararay waa u fakada saxaabadii oo hogaaminayay Abdullah ibn Jahsh waxay gacanta ku dhigeen kolonyadii gaadiidka ee ganacsiga ee Quraysh u socday waxa ay gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo kamid ah ciidankii kolonyadaasi hogaaminayay sidoo kale waxa fakaday ninkii la oranayay Nawfal ibn Abdullah oo ahaa dagaalyahan kamid ah reer Bani Makhzum saxaabadii waxay u soo laabteen magaalada Madiina oo nabigii halkii uu joogay ayaa ay soo aadeen hadaba saaxiibayaan nasiib xumo ninkii la oranayay Sa'd ibn Abi Waqqas iyo Utbah ibn Ghazwan ayagu ratigii ay ceyrinayeen ayaa la fogaaday ma aysan u suurta gelin in ay ka qayb galaan dhacdada ayada oo lagu qabanayo kolonyadan gaadiidka ah ee Quraysh u socoto daba saaxiibayaan magaalada Madiina ayaa ay ku laabteen saxaabadii ayagoo xambaarsan qaniimada aad u fara badan oo hogaaminayo hantidii ay lahayd Quraysh magaalada Madiina marka ay tageen nabiguna uu arkay in dagaal soo galeen hantina ay wadaan nabiga aad buu carooday wuxuu ku yiri wallahi inaanan idin amrin inaad dagaalantaan waxaan idin amray inaad xog i keentaan ee idmaan amrin inaad waxa weeye dagaal sameeyso oo aad qaniimo i keentaan arinta nabigi aad buu uga xumaaday Quraysh markii ay ogaatay arinta ayada ahayd aad bay u xanaaq waxaana ay fursad u heleen in ay muslimiinta ay duraan oo diintoodii ay dhaleecayaan maadaama dhacdadu ay dhacday maalin xurmo leh bil xurmo leh waxaana ay yiraahdaan warfiiriya ninkii Maxamed aha waxa uu la yimid wax aan Carabi waliba aysan sameyn bil xurmo leh ayaa uu dhiig daadiyay xoolana uu dhacay ninkii Maxamed ayaa wanaaga sheeganaya diin baan la imid lahaa waxa uu ku kacay bal arka Carab oo idil ayaa warka isgaarsiisay Qurayshna aad bay u bunboonis muslimiintina waa ay murgeen gaar ahaan nimankii sariyadan u baxay ee Abdullah ibn Jahsh hogaaminayay aad bay u murugeen war maxaad sameeyeen ficilkii aad sameeyeen muxuu ahaa balaaya nagu dhacday aad bay u murgeen saxaabadii nabiguna maanu aqbalin qaniimadii ay keeneen gacanna muusan qaadin labadii maxbuus ay keeneenna meel baa la isaga xiray cidina ma baadin xaaladu mar ay saa ku sugan tahay muslimiintuna ay murugsan yihiin ayaa ilaahay samada waxay ka soo dejiyay waxaana soo degtay aayada ku jirta suuratu al-Baqara yasalunaka 'an ash-shahr al-haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أهيت أسمرك أي سودكتي أي صحابتي فرحين أيضاً وحي لهذا هي بش حرمة إلا الدجالمو وأهل وين لكن waxa ka sii weyn waxa aad adinku sameeyeen Quraysh inaad nabiga alla beeniseen inaad muslimiintii aad ka bixiseen masjid al-haram iyo halkii ay guryahooda ay deganayeen inaad muslimiinta aad fidnayseen oo aad tacdiibiseen ilaa qaarkood aad ku qasabteen alfaad ay diinta looga baxayo oo qaarkood diintooda aad ka fidnayseen ayaa arintaas ayada ah oo dilka ah oo bil Rajab oo bil xurmo in wax la dila arinta aad sameeyeen baa ka weyn muslimiintii arinta ayada xogaa culayskii ayaa kaga degay nabiguna wuxuu aqbalay qaniimadii ay saxaabadii keeneen sidoo kale Quraysh waxa ay soo فيديو أي كفرنا يعني لبدي محابيس أو حوي مسلمين تو أي كقبصدين لكن صاحبيال
fidyadii ay soo direen nimankii Quraysh nabigu ma aanu aqbalin waxaana uu shardi uga dhigay labadii saxaabi ee maqnaa Sa'd ibn Abi Waqqas iyo Utbah ibn Ghazwan in ay nabad ku soo noqdaan laano nabigu wuxuu ka baqay in ay nimankaasi gacan galaan oo nimankii Quraysh ay u gacan galaan haddii nimankaasi nabad ku soo laabtaan kadib ayaan idinka aqbalayaa fidyadii aad ku furanaysaan labadan maxbuus ee ay nuhayno saaxiibayaal waxaa nabad ku soo laabtay ugu dambeyn labadii saxaabi ee oorka u ka lumay marka ay soo laabteen ayaana nabigu aqbalay fidyadii lagu furanayay Quraysh ay ku furanaysay labadii maxbuus ee laga qabtay meeshii la oranayay Nakhla saaxiibayaal ninkii la oranayay Abdullah ibn Kaysan oo labada maxbuus kamid ahaa asagu waa u islaamay oo halkaasi ayaa ku islaamay kadib markii uu arkay tacaamulka muslimiintu ay tacaamulayaan iyo akhlaaqdooda wanaagsan iyo sida ay ula dhaqmeen dabeecadii muslimiintu uu ku arkay ayaa waxa ku kalifay ninka asaga inuu islaamo oo diinta islaamka uu qaato hadaba saaxiibayaal taasi waxay ahayd duulaankii ugu horeeyay ama sariyadii ugu horeeyay ee Nabi Maxamed uu diro sallallahu alayhi wasallam ninka dhintay la oranayay Ibn al-Hadramina wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee dhinta ee musriga ee muslimiintu ay dilaan bartaasi ayaa waxa ka soo bilowday dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay ee muslimiintu ay sameeyaan waxaana ku xigsan doona dagaalo waaweyn oo Badr iyo Uhud iyo waxyaabo badan oo ka dambeeyay ah daba saaxiibadan halkan la soo gaartay aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalka daawatay channelka subscribe saar saaxiibkana la wadaag aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh la soco muuqaalka xiga